waxaan salaamayaa walaalayaal waa Faarax Roble Axmed ummadda muslimiinta oo dhan ayaan salaamayaa meel kasta joogtaba inta ijecel iyo inta inacayso intaba waan salaamayaa waxa kale oo gaar u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed walaalayaal shanta qaarad adduunka ka taalo iyo inta kale ka degantay adduunyada waan salaamayaa inta kadib walaalayaal barnaamijka maanta wax weydii baa leeyahay waa inaan wax ogaal isweydiinay dagaalkan socdo 5 sano hadda halkan nagu haysto iyaan wax niiga taabanayaa wixii aan ka fahmay anigana ifinaya walaalayaal dagaalkani ku imika bilaamay maaha waxa leenaaga la wala taataabay meel un baa loo socdaa jirka kale la taataabanayo looma baahna meel baa loo socdaa dagaalkan nimankan ay wadaan cafarta dankali ay wado waxa u socotay maaha galbeedka city sida la wada ogsooyahay dadku maaragtay ninkii ilaahay aqli siiyo og yahay waxa loo socday waa bad yar Jabuuti meel kale maaha badan Jabuuti waagaan guumaysiga calanka ka doonaynay ee ciisuhu ku dhamaaday ee calanka laga rabay Jabuuti bal hadalka ogaado calanka oo doonayna anagu ciisiga cafartuba ha wada helaan baan lahayn cafartuna gaar bay doonaysay isla markaaba gaar u doonaysay cafarta calanka waxa ku tusaysaa in markaa cafartu calanka gaar u doonaysay jabhad bay samaysatay jabhada markay geesiyaashii ilaahay inaga dhaliyay ee samada calanka ugu tagay calanku dhulka intuu ku dhicin samada laga soo qaatay ragii ugu tagay fadka hoostiisa calanka kala soo dhaadhacay markay hadda tafarihiina may soo galayaan calankan ay yiraahdeen nimankaasi tallaabay qaadeen jabhad bay bixin waa furuud weyn jabhada leeyahay jabhada furuud leeyahay baxday waxay ku 29 kilomitir ku soo qaaday Djibouti waan quwadaysanay calankii guumaysigii fariisa uu ka baxay ciiso galay farahan ku dhigno ka xoreeyna ciise yiraahdeen khatar kabaabi kolkay gasha calankii xasan guulad abtoon ilaahay jannada ha geeyay wuxuu u qaylsaday jeedaarankiisi ka ag jooga bashaarada qaadanay ma hayne ragga jiidana joogno ku nool buu ahaa galbeedka raggii joogay ee alaabta qaatay ee rida calanka raggaasu ahaa marka darbaaxa lixaad loo geystay iyo dib u fadhiisteen fikireen yiraahdeen ma sidaa baan kaga hadnaa af macaan baa dawladii lagu yiri waan soo hooyana haddeeto waan ka soo hooyana furuude shaqada nasiiha baadeed waadna laysay hay halkan galkii alla kii yiraahdo sidii meel loo gelinay dhaqaalihii miligiiba u bilaabay jabadii hal sanay baaba sanada sanadkii labaadba 94 kiilo waa la bilaabay uu hirgalay jabhadii waxa la isku geeyay cafartu 3 jabhadood bay leedahay 3 jabhadood magacadooda haddaan nii sheego mid waxa la yiraahdaa furuud waxay ka dagaalantaa Djibouti midna waxa la yiraahdaa urduf baa la yiraahdaa Eritrea ka dagaalantaa midna Guguba la Ethiopia ka dagaalantaa 3 jabhadood baa isku tagay 3 jabhad markay isku tagtay Eritreana xurgufan laga dhex bilaabay Djibouti hadii la yiraahdo darbaxa lixaad la ka dhacay halka uqdadii Djibouti oo qaatay iyo qoladiina tiri cafarin iyo Djibouti aan weerari jabhad baan samaysani taalada ma igu siini ha gacan baan ku siinaya halkaad ka bilaabi ana gararka ka bilaabi adu gacan u igu sii marxaba waa lagu soo dhaqaaqay dagaalkan kolkay cafar fadhiisatay Djibouti haddaan ku bilowno haye talatee ugu fiican ta aad ku jabtid yaa waaye sa ugu fiican taad ku jabtay hodhow baad halka kaga jabaysa ka weecan baa leey shalay bay ku jabtay kolkay xagga day ka soo weerartay maanta halkan ka soo weerar ana garan bay daatay waa cafariyo khibrad iyo maskax la adeegsado waxa leey halkii naga qabato wadanka halkay ahay ya galbeed bay ahay ya abeesada halkii laga dilaa madaxa laga dilaa de galbeed madaxa ka soo dilayt madaxa horta iska dilay galbeed ma iska dilay kolkan galbeed madaxa ka dilo de iyadan xeebta waaweyn ee xayaabley joogtana anaaba u iman doono un buragu ku fikiray waa suurtagal hadii jabhadoodna way isku timid waxa aad arkaysid ee 5 sano dagaal lagu wado waa 3 jabhadood ma kaligood baa hadda bal is weydiinay may kaligood ma Ethiopia taageero ka haysa taageerada lixaad ka haysaayo dikadan madow ciise iyo Soomaali waan ka saafiyeen bali ma ka saafiyeen ha gacan iyo garab baadiga heliba Ethiopia rat kow sidan bay horta u heshay talaabada la koobaad Eritrea waxa la wixii ay heli karto ay hawadiyo cirkiyo dhulka u soo mari kartaa waa laba Djibouti hadalkaaga bayada iska dah dul badan bay ku haysataa dhaqaale fara badan oo uu ila dagaalamo dhaqaalihii waxa weeye walaalayaal jabhada oo kale oo maahane dawlad deegaanka Ethiopia ay kilalada Ethiopia waa 10 kilal 10 ka kilal wuxuu ka siman yahay kilal kasta afar uu ka siman yahay jirto ay wala leeyihiin
ninba amba kii naqan ha ku naqnaado amba kii nin ha ku ninaadee ninba kartidooda weeyaane afar arrimood ay wala kala siman yihiin baa jirto waa maxay afartaas afartaa waxa weeye maal iyo baajad weeyaan baajad kow baajad bay ka wala siman yihiin ciidan way ka wala siman yihiin ciidan wala leeyihiin waa laba weeyaan waa laba waxay ka siman yihiin madax wada siman madax way wala leeyihiin waa saddex waxay ka siman yihiin qodobka afraad ay ka siman yihiin waa hub sanad military bay ka siman yihiin afartaa nooc ciidanka dawladda deegaanka way leedahay dawladda deegaanka kale cafarta way leedahay annaka madaxdayna jiga safarida jiga way wala leeyihiin dhammaan waxa raggani aan ishayno afartaa arrimood ee deegaan kasta la siiyey ayaa garbaciisa iyolaysa caddayntii cundhufo la duldhigay ilaahay baa nigu dhaarshay balo fiirsada saddexdii jabhadood waa la duldhigay waxa intaa u dheer ninka la yidhaahdo maxamed xasan ee maaragtay wasiir maxay ahayd hoggaanka nabadgelyada deegaanka cafarta ah waa maalqaban weeyaan waa ninka midixda le weeyaan maxamed xasan baa la yidhaha wuu soo urusha cafaroo dhan nin kastoo cafara ama shacbaada madaxweynaha wuxuu yidhi qof bilaa bishaar oo reerkiisa ka uurku talloonaya ma jiro qof reerkiisa ka uurku talloonaya xagga dhiga nin kastoo shacbaan cafara wuxuu yidhi islaantaada bishaar baan u qoray jiida gal amba dhima amba noolow labadaabaa go'aan lagu kala qaatay waa kow waa hal nin weeyaan waxa saa samaynay annaga walaalayaal iminka cafara dad baa yidhaahdo waa rag weeyaan waa jagnaa weeyaan wallaahi jagnaa maaha wallaahi billaahi baan kulahay maa jagnaa maaha maxay jagnaa ku tahay ma ragga dadka cawlcawlaneed aragtay ee qorigaa wato ee ay iskugu tegeen saddex jabhadood saddex waddan ka timiday iskugu tegeen saanad ciidankii oo dhan madaxdii oo dhan maalkii oo dhan ragga saddexdaa tuulo shan sano ay ka qaadatay ee qaraf iminka waxaan joogi waa qaraf weeye waxay ii tahay garbaciisa 3 kilomitir ragga iga soo qaatay ee intaay oo dhan haysta anna intaa aan haysan ee shacbi garab joogo oo bishaar ii qore aan haysan cudud ciidan oo 4 saac barta ay dagaal ku socdo toos u galay aan haysan walaalayaal aan haysan maaliyada dhex socoto ragga intaa 5 sano intaayo 3 kiilo iga qaataa ragga cafnal waa jagnaa leedahay marka ciise muu dhan yahay inta arintaas haddaba ciise haddaba ciise leeyahay u dhaneen waa jiida ciise deganaa luuqa gudbana afdam ka sokeeyo halka casbin ka sokeeyo halka cadale ka gashan aqal dhinaca ka ilama dagaalamin ciise afartaadu ay heleen afartaada xaga ka marto aaway afartii ay heleen afartaydii waxa la wahayo waa la garan leeyahay waxaan hooyana keena hooya aabowgeeya leedahay aabbana keena uu leeyahay halkay martay baa leeyahay macnaha halka waxaan u fahmay afartaadiisi hadday madaxda jijiga joogtaa hadday ciidan tahay jijiga joogaan hadday baaja tahay jijiga joogaan hadday maxay ahaydeen sanad military tahayna jijiga ayaa lagu haystaa adigana waa lagu adeegsaday halkay jiida bay joogaan jiidii halu majar isku duuduubo waxa weeye murtidii inta ay iyadu wadatay la timid haddaan la iman lahaa ilaahay baa garan meelaan joogi lahaa waxaan sani leeyahay baaqayga jabuuti baan u diray galbeed madaxii waa laga dilay kow maantana weliba wallaahi dadoomaan leenahay dadooma la gaadhaan leenahay na nagama quusan dad laga quusta ma nihin rag laga quusta maanta ma joogno haddiina na soo gaadho gurmadna noo keeno hubna noo keeno maaliyadna noo keeno la faneeya dadkoo la fangeliyo shacabka iyo dawladdu ay isgarab taaginaa oo dad sidaa iskugu dhafan aan noqono wallaahi maanta halka aan joogno tallaabo ka soo qaadi mayno laakiin moraal jab inuu nagu dhaco madaxana naga dilo walaalayaal dadkii leeyahay nin kasta haddee toole halkii uu mari karayo ha mara haddii lagu afuufo dawlad iyo shacabba oo niyaddu ay naga jabto waa laga iman dhulka daraad iminka cafarto bayt adeer cundhufiya galmali cundhufiya maxay ahayd ee dal la helay dagaal kuguma qasban siyaasad baa iga bixisay meesha waana laga bixi malahayn nafsi ciise dhexdiisa oo kala galay oo baba ka bixisay ragga shalay toole meesha wax alla wax kale ka saara meesha maba garanayo kolkaan rogay saara nafsi ciise dhexdiisa loo kala galay oo baba ka saartaan anuu yiri wax kale may ha garba ciise wixii ugu gaar afar waad garan ha 200 nin baa joogtay 735 way kaga dhimatay sida luuqu dhiigaaga u laamay sida luuqa wali ma degtay garba ciise islaamna ku dhex wastay ma degintii guri kama gelin saacadda la joogaad isku aaminayn ha habeenka saddex joogna kuwa weliba kuwa cundhufa jooga kuwa dan la helay joogana jagnayaal bay ahaayeen rag maskaxda laga dilo la moraal jabiyay ahaayeen been ay heshay ahaayeen haddaad ugu geli lahayd waxaan lahaa daraad way galayaan oo inta hadhayna cafar labada magaalo ku dhimanay ilaahay ma qadarin halu majar isku duuduubo baaqayga
iyo sheekadayda wuxuu ku socday waa jabuutiyey soo gurmo waan kugu daaliyey wax ii qabo waan kugu daaliyey wareerkaagii uu batay waana waan kaala daalay iminkan wax kuu kala ifiyey madaxii aniga ahaa ee kuu soo gurmanaya madaxaa layga toogtay kow sidaan kugu soo gaadhan kugu soo gurmaday maanta way aragtoo way fikirta cafar iyo halkii ku qabanaysay ha iska dishi baa tiri adiguna dee xeeb weynayd oo iska fadhida xayaableeye raggu uu kugu yimiday raggu uu kugu yimidaye waxaad falaysa adag kuu taallaa aniguna ilaahay baan leh baraaruga taftiya kama hayn iminkan kuu sheegay baraarug ama idiid ama ijeclow wallaahi iminkan kuu sheegay salaamu calaykum